markaad rabto kombiyuutarkaaga inuu ku shaqeeyo wax ka badan hal operating system sida Windows 10, Ubuntu oo ah Linux ama Windows 7 oo kale, waxaad u baahan tahay in aad sameyso virtual machines. Tusaale, adigoo adeegsanaya kuna shubi doona kombiyuutarkaaga mid ka mid ah programmada kala ah VirtualBox, Hyper-V ama VMware. haddaba saddexdan mid ka fiican aan fiirino waxay ku kala duwan yihiin. VirtualBox ugu horreyn waa bilaash, isla markaana waa cross platform oo ka dhigan inuu ku shaqeeyo dhammaan kombiyuutar kasta, ha ahaado mid Windows ah ama Linux ama Mac OS X Macintosh. Hyper-V wuxuu ku shaqeeyaa oo kaliya Windows 8, Windows 10 Professional iyo Enterprise, sidoo kale Windows Server 2008 iyo wixii ka dambeeyay. VMware Workstation isaga waa lacag, balse sidoo kale wuxuu leeyahay free version 30 maalmood oo bilaash. haddaba sidee u shaqeeyaan programmadan? waxaan u kala qaadaynaa 3 qaybood. qaybta koobaad oo ah host machine, labaad oo ah hypervisor, iyo saddexaad oo ah guest machine. haddaan si kale u dhigno, qaybta koobaad waa computer laptop ama desktop ah oo si fiican u shaqeynaya. qaybta labaad waa hypervisor oo ah program mid ka mid ah saddexda aan soo xusnay, kaasoo maamulaya agabka ama resource-ka uu kombiyuutarkaaga ka kooban yahay sida RAM-ka, CPU-ga, hard disk-ga ama SSD-ga hadba midka kugu jiro, asagoo kuu ogolaan doona inaad sameyso virtual machine cusub kuna keedin doona mid walba gal ama folder u gaar ah. qaybta saddexaadna waa virtual machines-ka ku jiray gudaha kombiyuutarka caadiga ah. faahfaahin aan halkaas ku ekayno. qaybtan xigta ku soo dejinaynaa kuna shubi doona VirtualBox maxaa yeelay waa bilaash isagaana ku haystaa.